kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caaw barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay fil Soomaaliya oo ku guuleysatay doorashadii gudoomiyaha guddiga doorashada ee heer federaal midowga murashaxiinta oo ku kala qaybsamay taageerada murashaxii ay wateen ee tartanka adag la galay murashaxii ka socday madaxtooyada haddaba sidee bay u dhacday doorashadii maanta ee gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo ku-xigeenkiisa yaa faa'iido qaba labada dhinac ee fil Soomaaliya iyo Mucaaradka warbixin buuxda ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah qodobada kale ee wararkeenana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo sameeyay Dhoolatuska siyaasadeedkii ugu weynaa isla markaana soo bandhigay awoodiisa doorashada ee dhinaca dhaqaalaha doorashada sanadkan oo la shaaciyay in saldhigeedu uu yahay dhaqaale iyo hardan adag oo dirboba bilowday Imaaraadka Carabtana waxa ay war adag ka soo saareen taageerada ay sanadkan siin doonaan siyaasiyiinta mucaaradka ah xilli cabsi laga muujinayo in xayiraado cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ku soo rogto xukuumadda Dubai iyo golaha wasiirada maamulka Hirshabelle oo cabsi badan kadib ugu dambeyn ku shiray magaalada Beledweyne oo saaka uu dagaal culus ka dhacay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen Axad ah 4 bisha 7 ee Luulyo sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanideen aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku bilaabaynaa wararkeena caawa wararkii ugu dambeeyay doorasho aad u adag oo maanta ka dhacday xerada xalane ee markaasi Afisione iyada oo halkaasina ay ku loolameen murashaxiin ay kala wateen Mucaaradka iyo waliba sidoo kale fil Soomaaliya daawade doorashadan ayaa waxa ahayd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo waliba sidoo kale ku-xigeenkiisa doorashadan oo iyadu ahayd mid la sii saadaalinaya isla markaana loolankeedu uu ahaa mid aad u culus ayaa waxa ugu dambeyntii ku soo baxay murashax ay wadatay fil Soomaaliya kaasi oo horay u soo noqday gudoomiyaha guddigan oo markii hore muran laga keenay isla markaana isku shaandheyn lagu sameeyay guddiga doorashada heer federaal waxa ay magaalada Muqdisho ku doorteen maanta gaar ahaan xerada Afisione ee magaalada caasimadda ah gudoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal oo noqon doona gudoomiye rasmi ah kaasi oo si habsami leh u wadi doona howlaha guddiga doorashooyinka heer federaal tartanka doorashada ayaa waxa uu ahaa mid aad u adag iyadoo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ay la tartamayeen ilaa iyo 5 murashax kuwaasi oo kala ah Maxamed Xasan Cirro oo ah shakhsiga guuleystay Liibaan Axmed Xasan oo ah shakhsiga ay loolanka adag wadaageen Cirro Cabdi Naxiis Aadan Cabdi Casiis Yuusuf iyo waliba sidoo kale Maxamed Muuse ayaa tartan adag uu ku dhex maray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal wareegii labaad ayaa waxa isugu soo haray oo tartan kii ka hore ka xamaasad badan uu ku dhex maray Liibaan Shuluq nin la yiraahdo iyo waliba sidoo kale Maxamed Cirro oo isagu hore u ahaa gudoomiyaha guddigan inkastoo markii hore guddigan shaqadiisa uu iska casilay markii guddiga dib u habeyn lagu sameeyay wareegga labaad ee doorashada ayaa waxa ku guuleystay Maxamed Xasan Cirro oo helay 14 cod halka Liibaan Shuluq uu helay 10 cod sidaasina waxa gudoomiye ku noqday Maxamed Xasan Cirro oo horeyna u soo noqday gudoomiyihii guddiga doorashada ee la kala diray amaba isku shaandheynta lagu sameeyay Maxamed Xasan Cirro ayaa xilligii uu noqday gudoomiyaha guddiga doorashada ee muranka dhaliyay markii dambe isku shaandheynta iyo dib habeynta uu ku sameeyay ra'iisul wasaare Roble waxa uu si xoogan markaasi ugu xirnaa fil Soomaaliya waxaana wararku ay sheegayaan in fil Soomaaliya ay murashaxan iyadu si gaar ah u wadatay hadaba waxaynu eegi doonaa doorashadii maanta ee gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxyaabihii markaasi laga calaamadeeyay waxa la sheegay in midowga murashaxiinta mucaaradka ah ay iyagu markaasi ku kala qaybsameen doorashada oo aanay hal murashax isku raacsanayn marka laga reebo in Liibaan Maxamed Xasan si gaar ah loogu tirinayay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo kooxda way arag la magac baxday waxa la sheegay in mucaaradka naftirkooda ay markaasi ku kala qaybsameen in ay hal shakhsi amaba hal murashax ay si wada jira u taageeraan isla markaana xubnaha gudiyada doorashada ugu jira ay ku amraan in ay u codeeyaan shakhsigaasi balse awoodda iyo waliba sidoo kale dadaalkii ay bixisay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ugu suurta gashay in loo codeeyo oo uu soo baxo Maxamed Xasan Cirro oo ahaa gudoomiyihii hore ee guddiga doorashada ee isbedelka lagu sameeyay
waxaa halkaasi ka cad in midowga murashaxiinta ay iyagu dhexdooda khilaaf xoogan uu ka jiro isla markaana aysan qorsheynaynin in ay hal meel wax u wadaan maadaama murashax kasta uu doonayo in taageero gaar ah isagu markaasi uu helo. waa hagaag isla wararkaas ayaynu ku guda jirnay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo bandhigay awoodiisa dhinaca doorashada waliba sidoo kale dhaqaalaha iyadoo maanta la filayay in murashax aanan ahayn midka ay wadatay fila Soomaaliya uu ku soo baxo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa arintaasi waxa beeniyay madaxweyne Farmaajo oo soo saaray sidii markaasi dadku ay filayeen ahaa in murashax ka socdo madaxtooyada Soomaaliya uu xilkan ku guuleysto. arintan ayaa waxa loo fasiray in doorashada Soomaaliya ee sanadkan aas-aaskeeda ugu weyn uu noqon doono dhaqaale maadaama cashir weyn laga bartay doorashadii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee doorashadiisii adkeed ay maanta ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waxaa sidoo kale la filayaa in isbedelo waaweyn iyo loolano kale uu markaasi soo bandhigo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu tartan adag kala kulmi doona siyaasiyiinta mucaaradka ah. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan warqaad TV ayaad naga daawanaysaan daawadayaal. iminkana haddii aynu fiirino dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka hadashay kulan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen safiirka u fadhiya Soomaaliya ninka la yiraahdo Danjire Maxamed Axmed Al Cusmaani iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Soomaaliya madaxweyne ka soo noqday. qoraal ay soo saartay safaaradda Imaaraadka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud uu danjiraha Imaaraadka ee Soomaaliya kala hadlay arrimo ku saabsan sidii Imaaraadka Carabta uu uga qayb qaadan lahaa taageerada uu siiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah. waxa Imaaraadka Carabta uu hore u sheegay in uu isagu taageeradiisa uusan cidna kala gamban doonin isla markaana shaqsiga uu rabo oo siyaasi mucaarad ah uu taageeri doono arintaasi oo fasiraado kala duwan laga bixiyay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu markaasi Imaaraadka ku bogaadiyay dadaalada ay ku bixinayso dib u dhiska Soomaaliya iyo taageerada mucaaradka isagoona xoojiyay xiriirka labada dal iyo xiriirka shacab ee soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dhinac. waxaan kula kulmay mudane Danjire Maxamed Al Cusmaani danjiraha Imaaraadka ee Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu mahadnaq iyo bogaadin ugu jeediyay dowladda Imaaraadka Carabta. warkan ka soo baxay Imaaraadka Carabta ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo cabsi xoog leh laga muujinayo in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xayiraado kale oo hor leh ay ku soo rogto dowladda Imaaraadka Carabta oo iminka u muuqata in ay galaangal ku yeelanayso arrimaha ka soconaya Soomaaliya oo ay ugu weyn tahay arrimaha doorashooyinka dalka maadaama sanadkan la isku diyaarinayo doorashooyinka waxaana xusid mudan in doorashada sanadkan ay tahay mid si weyn uga xiisa iyo xamaasad badan doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray maadaama loolan adag iyo isbedelo iyo siyaasado cusub iminka laga dareemayo gudaha dalkeena. xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaana muddooyinkii dambe madmadow badan uu ka dhex jiray waxaana dhowr jeer dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka hortimid waxyaabo oo heshiisyo iyo waliba sidoo kale bayaano kale oo soo saartay xukuumadda Dubai kaasi oo gudaha Soomaaliya laga fulin rabay iyadoo xitaa mar safaaradii Soomaaliya ay ku lahayd Imaaraadka albaabada la isugu dhuftay sidoo kale mashaariic kale oo dib u dhiska ciidamada ay ka mid ahaayeen Imaaraadka laga hor istaagay. balse Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa isagu markii xafiiska uu yimid waliba toddobaadyadii la soo dhaafay waxa uu hagaajiyay xiriirkii Imaaraadka Carabta iyo waliba sidoo kale Soomaaliya ka dhaxeeyay inkastoo wali caga badan uusan ku taagnayn maadaama Imaaraadka qorshahooda iska cad yahay isla markaana ay doonayaan inay si weyn u taageeraan siyaasiyiinta mucaaradka ah si ay u soo saartaan shaqsi ay iyagu markaasi ku qanacsan yihiin. ugu dambeyntiina waxa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan maanta ka dhacay kulanka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo markii ugu horeysay halkaas lagu qabtay tan iyo markii madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe uu ku soo baxay tartanka doorashada ee Hirshabelle. gudoomiyaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Dabageed ayaa kulankan shir gudoomiyay. kulankan ka hor waxa cabsi xoog leh ka jirtay magaaladaasi kadib markii saaka ay dagaalo culus halkaas ku dhex mareen ciidamada Hirshabelle iyo waliba sidoo kale maleeshiya taabacsan General Xood oo isagu hanjabaad waday ayaa ugu dambeyntii laga adkaaday ama u muuqda mid laga adkaaday maadaama kulankii uu diidanaa in uu ka dhaco magaalada uu qabsoomay. kulanka golaha wasiirada
ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo markaasi quseeya maamulka Hirshabelle, waxaana sidoo kale ka qayb galay kulankaas gudoomiyaha gobolka ee Hiiraan oo isagu halkaasi warbixin looga dhageystay xaaladda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn, iyada oo waqti kasta la filan karo in General Xood maleeshiyada uu hogaaminayo ay magaaladaasi soo weeraraan. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah intaynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.